السلام عليكم saaxiibayaal meel walba caalamka joogtaan waa ninkii ahay Khayraadish oo in badan maaragtay aad ismoogeedeen mashquul igu furnay awdiis saaxiibayaal waxaan caawa fiidiyoon u duubay rabaana inaan kula wadaago run ahaantii lacago maaragtay aan isleeyahay way ka faa'iideysan karaan asxaabta kugu xiran lacagahaas waxay noqon doontaa haddii ilaahay idmo 3 lacagood noqon doonaan waa isla falanqeyn doonaa maxay ahayd jaanisada ku jirana insha Allah haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa inay sida ay yihiin maaragtay aan uga faa'iideysano haddii aan trade view-geena soo kicino الله مستعان halkan waxa nooga soo kicinaysaa maatafkeena halkan maatafka nooga soo kici full screen nale halkan nooga door waxaan ka bilaabeynaa lacagta la yiraahdo GBP index aan fiirineynaa fursadaha ku jira isla arkeynaa insha Allah kabacdi waxaan gudbi doonaa maxay ahaato lacagaha maaragtay ay GBP-da u horeyso hadii Ilaahay idmo sida u jeedaan saaxiibayaal lacagtan waxa waaye GBP index waaye lacagtan qaabka ay ku soo dhacday sharaxaad uma baahno structure macaan noo sameysay impulse soo sameysay hadda waxa ay ku jirto face-ka hadda soo ku jiro waa maxay waa face as a correction ah maxaan ka filaynaa dhaqaaq okay marka hadda laba maaragtay laba hab ama laba maaragtay way oo suuqu sameey karo ayaa jirto labada oo suuqu sameey karo waxa ay tahay suuqu in uu halkaas gaaro oo horay maaragtay awal u tago suuqu inuu gaaro oo maaragtay correction kula dheeraado oo maaragtay qaab noocaas ku tago ka bacdina saas ku soo dhaco waa mid suurtagal ah oo dhici karta midda labaad oo suuqa maaragtay ayadana ka dhici karto haddana aan sugeyno face koowaadna noo noqon doonta haddii Ilaahay idmo waxa ay tahay suuqaanu wuxuu soo sameeyay impulse Soomaa waxa uu ku jiro waxa ay tahay correctionkii waxa uu naga siiyay 3 touch meesha aan rabnay inuu maaragtay suuq halkaas markuu marayo noo soo dhaco wuu soo dhacay balse haddana wuu laabtay hadda correction xalay marka lacagta falaqeynaayo correction macaan ku jirtay waxaan islahay halkaas maaragtay ka soo daadan doonta hadii Ilaahay idmo mar sameeyay dhicin oo waxay ku laabatay double topkii haddana ay ka soo dhaqaaqday okay lacagta waxa ognahay mar walba oo suuqu xarafka M sameynayo xarafkaas M sameynayo lugtaanu waxa ay noqotaa correction saasoo suuqu soo dhaca okay suuq hadda waxaad markaad si fiican u fiiriso halkan maxaa ka arki kartaa luga dhacday oo soo dhacay hadda muxuu ku jiraa correction lugtii labaad inuu saas ku sameeyo suuqan M taasna oo noo sameeyo halkan correction oo ku tagaysa u jeedaan waxa weeye double top halkaasna maaragtay waxa weeye bounty adag oo suuqu maaragtay oo ka soo daadan karo marka taas dambe way dhici kartaa laakiin satana nooga horeyso inta confirmation hadda aan u jeedno aan ka heesanana waxa ay tahay maaragtay confirmation aan lacagtan ku qaadan karno kuna tixgelin karno okay maxaa kale marka aan gudaheeda ka sii arki karnaa waxa aan joogaa hadda waxa ay tahay 4 hour 1 hour kana maaragtay same history noo sheega asagana wax maaragtay saas ugu duwan oo maaragtay hadda aan uga jeedno ma ay jirto kaliya waxaan wandheedan ka rabaa oo inaan idin kaga sheego suuqa hadda saacada waxay aniga dhankeyga ka tahay 11 PM marka haddii maaragtay suuqu
candlekaas dheyga ah oo ku xirmo rejection oo suuqu maaragtay halkaas maaragtay rejection kasoo qaato waxay ka dhigantaa suuqaas in lasoo buush garay doono haddii ilaahay idmo ugu yaraan halkaas la keeni doono haddii kale halkaas weyn oo maaragtay aan ka wada rabno maaragtay ay suuqu maaragtay u imaan doono marka candlekaasna maaragtay waa candle maxay ahaato cashir gooniyaha rabaa haddii ilaahay idmo inaan maaragtay asaga maaragtay aan idinkaga soo diyaariyo candlekaas marka uu dhaco wandheeda laga fiiriyo confirmationada kabacdina suuqu sidoo maaragtay u dhaco u daato haddii hadda aad aragtaan wax yar example aan idinka siiyo suuqu mar walbo halkan uu dhammaystay maaragtay dhaqaaqii correctionka ahay halkaas waxaa kasoo baxay candlekaasna waa day waxaanu ku xirmo week suuqu saasuu kusoo daatay haddii aad isla fiirisaan halkan oo kale aad fiirisaan oo kale dhowr meel aad fiiri kartaan okay haddaa halkan fiirisaan oo kale suuq 1 iyo 2 iyo 3 Soomaa meeshan candlekaas waxaa aragtaa inuu correction oo maaragtay soo qaatay rejection candle ku xiga xataa rejection qaatay aan meeshii la dhaafin kabacdina suuqu sidoo kusoo daatay haddii hadda backtest aan sameyno ma rabno inaan gadaal ugu noqonay no maaragtay waxyaabo badan aad maaragtay dad baataan aad arki kartaan okay allahu mustacaan marka suuqan candlekaas waa candle muhiim ah qaabka uu ku xirmana waa isla arki doonaa insha allah balse hadda waa maaragtay aad u qurux badanta GBP-da okay yaana ku dheeraanin aan tagna marka lacagaha GBP-da la xiriirto waxaan ka dooran doonaa haddii ilaahay idmo sida aniga hadda aan hor uga doortaba GBUSD oo kale waa lacag aad qurxan ayadana maaragtay aan maaragtay diiradda saarno midda kale ogsoonow lacagtan waxa aan ku doortan haddana waxa ay tahay GBP-da oo aan sal ka filayno iyo USD indexka oo ayadana arki doono oo aan ka filayno buy marka ayaduna maaragtay waxay leedahay muhiimadeeda qaaska ah marka okay lacagta marka wandheedan joognaa saa u jeedaan saaxiibayaal wandheeda sharaxaas dheer uma baahno waxaan waa impulse waxaan waa correction 1 iyo 2 iyo 3 halkan ku haysanaa 1 iyo 2 iyo 3 waxaan rabnaa in suuqu soo daato balse waa lagu laabtay waxa loogu laabtay si correction ah 1 iyo 2 iyo 3 lagu sameystay suuquna halkaas maaragtay candlekaas insha Allah qaabka uu ku xirmo kabacdina haddii ilaahay idmo waa sida GBP-da aan ka sugeynay inaka saan soo falanqeynay kabacdina suuqu uu sidaas ku soo daato impulsigii hore oo suuqu soo dhaqaaqay mid la mid ahna oo saas ku dhaqaaqo haddii ilaahay idmo oo saas noogu soo daato insha Allah haddii ilaahay idmo saasan ka sugeynaa haddii aan low time frame-ka wax yar 2 iyo 1 ka sii fiirino oo gudaha u dhaadhacno waxaan ka arki karnaa marka oo dheeraad ah a lot of confirmation waxa tan waa 3 touch tan waa 3 touch kan waa 3 touch intaas waa maaragtay waxay sheegayaan suuqu inuu maaragtay correction ila impulse adaaba saar karinba trailing maaragtay waxa trailing-ka qurxiyo trailing-ka la saartaa waxa ay tahay correction impulse ma uu qabto maaragtay maxay ahaato trailing okay marka candlekaas ugu dambeeyo sida u jeedaan waa candle maaragtay momentum leh candlada ka horeeyana ka awood badan waa maaragtay waa sida maaragtay ugu macquulsan maaragtay aan isku fahansiin karno okay kabacdi suuq hadda maaragtay maadaama uu soo dhacay 1 hour-ka aan tagno candlekaas oo u jeedin qaabka uu noqday hadda waxa uu ku jira suuqu maxay tahay marka face-ka uu hadda ku jiro waxa ay tahay correction ah bilowday correction-kaas insha Allah qaabka uu noqdo hadda qaabka uu noqday stiff camal uu noqday maaragtay stiff flag waxa ku ogtihiin stiff flag isqaab noocaas oo noqday kabacdina bum waa soo dhacaa waa saysaas loogu faa'iideystaa labadiisa geesood maaragtay xariiqtada ka dhigay break out marka aragtan suuqa maaragtay halkaas maaragtay ka soo galaysa haddii maaragtay suuqu uu maaragtay noqosho yar halkan ku sameeyo oo maaragtay qaab noocaas oo kala sameeyo oo maaragtay 1 iyo 2 iyo 3 ah ka heshan touch saddexaad ayadana aad maaragtay ka qaadan doontaan haddii ilaahay idmo balse waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay aragno qaabkii oo correction-kaas noqdo kabacdina maaragtay aan intriga maaragtay halkaas ka raadsano waa wax iska clear ah hadduu suuqu soo dhaco correction-kaas u wardiysan doontaa qaabkii maaragtay aad ula jaan qaadan lahayd haddii ilaahay idmo intriga ka raadsan lahayd hadduu qaab noocaan noqdo
oo maaragtay xataa waxaa samayn kartaa haddii aad halkan candle confirmation ka hesho waxaan joogaa soomaahan 1 hour kan joogaa interiyadu aad u fara badan yihiin dadaa waxaa laga yaabaa inay break out ka qaataan dadaa waxaa laga yaabaa in maaragtay nuucyo badan oo interiya maaragtay aad jirto oo qofku maaragtay uu interi suuq uga qaadan karo balse waxay ku xiran tahay adiga balaankaada halka aad trade ka qaadato inta stop loss-kaada u ogoshahay maaragtay waa ayadana maaragtay waa mashruuc kale oo gooni ah balse suuqu hadda lacagtaan aad u qurux badan tahay way soo dhacday correction ku jirta marka adigu halka aad ka qaadan lahayd maaragtay waa goonideed haddii aad maaragtay suuqu inuu wax yar la laabto aad sugayso oo correction ka waxa quruxsada aad leedahay waa mid haddii break out soo sameeyo suuqa aad maaragtay ka qaadanaysan ayadana waa weji kale marka GBP da ayada insha Allah correctionkaas ma ka baxdan qaadan doonaa haddii Ilaahay idmo ka bacdin waxaan haysan doonaa ilaa iyo halkaas haddii ay trailinka kala noo sii tagtana dawaaba waxaad wax lagu darwaayo waxaan ka qaadan doonaa insha Allah waa 220 bib ugu yaraan haddii kale waa 330 bib marka insha Allah lacagtaana intaas way dhaqaaqi doontaa biidillah kareem sababtoo ah confirmationada aan ka haysanaa waxa ay yihiin high probability trade waxyaaba lagu magacaabo sababtoo ah trade-ka hadduu 1 iyo 2 iyo 3 waxaan joogaa waxa ay tahay 4 hour 1 iyo 2 iyo 3 structure wuxuu uga siiyey oo structure maaragtay macquul waa 1 iyo 2 iyo 3 oo wuxuu uga siiyey 4 hour 1 iyo 2 iyo 3 gudaha ku jiro 1 iyo 2 iyo 3 kale gudaha ku soo jiro intaas buu waxay sheegaan suuqa inuu soo dhici doono insha Allah marka lacagtan indhaha aan ku hayno di Ilaahay idmo aan ka faa'iideysano boqolkiiba maaragtay wax iska yar waaye in maaragtay halkaas maaragtay ay tagto laakiin aniga muhiimadda halkaan aan siiyaa insha Allah di Ilaahay idmo ka bacdina maaragtay saasa ma suuqa uga faa'iideysan doona saaxiibayaal lacagta kale intaana ka bixin haddii aan fiirino USD da ayadana aan fiirino halka ay taagan tahay USD index ayadana waa soo jeedaan waxa ay taagan tahay meel xasaasi ah suuqan sida u jeedaan sharaxaas uma baahno suuqan waa soo daatay qaabku ku soo daatay u jeedaan oo soo dhacay wuxuu imaaday double bottom waxa lagu yimid dhaqaaqa markii hore lagu yimid ka bacdina suuqu uu ishabeeyay wuxuu ku sameystay mini double bottom oo ku sameystay maxaa suuqina suuqa at least in halkan la geeyo maxaa halkan idin leeyahay waxa dhici karta in USD index qaab noocaas sameyso oo si socosho ay sameyso haddii kale si suuqaanu uu halkaas noogu laabto oo 1 iyo 2 iyo 3 halkan ka soo sameysto ka bacdin oo saas ku soo dhaco oo wax maaragtay laba wajiyo maaragtay suurtagal laakiin waa lama huraan in suuqaanu halkaas oo tago oo correctionka meesha oo ka soo bilowdo oo tago sababtoo ah waxaan haysanaa 1 taabasho 2 taabasho 3 taabasho lagu yimid as a correction marka waana maaragtay waxyaabaha suuqa dhaqaajiyo maaragtay suuqa awood u yeelo inuu maaragtay oo maaragtay reversal sameeyo marka calaamadii reversalka maaragtay waa ugu wada jeednaa marka waxaan sameynaynaa GBUSD qaabkaas aan indhaha ugu hay doonaa insha Allah sababtoo ah USD waa buy GBP indexna waa sell ayadana saa u jeedaan waa sell marka qaabkaas maaragtay ayadana aan maaragtay uga faa'iideysan doonaa haddii Ilaahay okay waxaa ku soo haray lacagta la yiraahdo New Zealand index saaxiibayaal haddii aan ayadana isla fiirino ayadana sharaxaas u dheer uma baahno waxa ay taagan tahay meel maaragtay ayadana aad iyo aad maaragtay u qurux badan waxa ay haysataa double topkaas kore haysataa 1 iyo 2 iyo 3 halkan trailing ay saaran gudaha trailing kala ku jiro hadda u jeedaan 1 iyo 2 iyo 3 asagana sameeyna markii intaan oo maaragtay structure ah oo suuqa qabto suuqaas waxa la muhuraana inuu at least soo dhaqaaqo ilaa iyo halkan maxaa idin leeyahay waa kii correction ugu dambeysay oo maaragtay ka bilowday okay haddii kale se trailingaas la imaado marka waa u jeeda indexkan New Zealand say sharaxaas uma baahno aad u qurux badan aan tagna marka lacagaha inda ay u horeyso maxay ahaato New Zealand USD oo kale New Zealand iyo USD oo kale haddii aan tagno sida u jeedaan saaxiibayaal ayadana
lacagtan waa tradeada maaragtay la yiraahdo high probability trade intaan oo maaragtay suuq marka uu ka daro confirmation waxa haysataa maaragtay xaqiiqooyin maaragtay cajiib ah oo lacagtaas ku sheegay inay maaragtay jihadaas ay maaragtay aadi doonto halkan sida u jeedaan waa raylinkaas ii saaran waa double top halkan kale u jeedaan 1 iyo 2 iyo 3 waa maaragtay waa 1 iyo 2 iyo 3 trailinkaas kan kale ku jiro 1 iyo 2 iyo 3 kan kale ku sii jiran oo 1 iyo 2 iyo 3 saddex structure ah waxay sheegtay saddexdu inuu suuqu saliya suuqan waa soo dhaqaaqi doona biidnillaahi kariim ilaa iyo waxay soo dhaqaaqi doontaa New Zealand iyo USD na ilaa iyo waxay soo dhaqaaqi doontaa saaxiibayaal ilaa iyo waxay soo dhaqaaqi doontaa 120 bib ilaa iyo 300 bib marka ilaa 300 bib marka insha Allah idana saas uga faa'iideysan doona haddii aan one day-da aan ka fiirno candle-ka waxa u jeedaan candle-kan inuu si qurux badan ku dhamaan doono haddii Ilaahay idmo oo u jeedaan candle-ku wuxuu isku bedelay dooji ahaan oo u jeedaan wiiga oo la baxay suuqan insha Allah 1 iyo 2 iyo 3 target saddexaad oo candle-kaas ka soo baxay waxaa rajeynaynaa suuqa asagana saas loo soo bush garayo ilaa iyo 120 kaas badna oo soo daato ugu badnaana 300 iyo intaasoo bibna maaragtay insha Allah asagana ka faa'iideysano biidnillaahi kariim waa lacaga maaragtay run ahaantii aad iyo aad u qurux badan lacagaha idin la wadaago waxaana maaragtay aan rajeynaa insha Allah maaragtay inaan si wada jir ah uga faa'iideysano mar walba tradeina is yiraahdo maaragtay waa cajiib oo maaragtay markaasna maaragtay Ilaahay maaragtay fursad ii siina idin la wadaagana maaragtay waa idin la soo wadaagaa saaxiibayaal maxay ahaato haddii Ilaahay idmo lacagtan saas uga faa'iideysan doona waa New Zealand USD lacagta horena waxay ahayd GBP lacagta kale xigta oo ayadana maaragtay run ahaantii aadka iyo la qurux badnaato waxa ay tahay saaxiibayaal lacag la yiraahdo euro iyo GBP euro iyo GBP ayadana maxaan confirmation ka haysanaa ayadana warkeedu waa cad yahay euro iyo GBP sida u jeedaan halkan waxa lagu yimid double bottom ka bacdi maaragtay waxa ay ku timid as a correction halkan waxa lagu yimid double bottom correction kaloo sameeyay run ahaantii anigu markii lacagtu double bottom sameyso haddana meeshaan correction ay soo ma haddana mini ku sii darsato suuqaas maaragtay waa suuqyada maaragtay lacagaha ugu jeclaha sababta oo ah hadda back testing ku sameyso ama si aad maaragtay gadaal u raacdo mar walba oo ay waxaas dhacaan suuqu wuu dhaqaaqaa wuxuu u dhaqaaqaa si cajiib ah oo maaragtay la laabasho lahayn marka lacagtan waxaan ka rajeynayaa biidnillaahi kariim ayaduna inay halkaas ka dhaqaaqi doonto ugu badnaana ay tagi doonto ilaa iyo 400 bib ugu yaraana 136 bib marka insha Allah lacagtan aad u qurux badan tahay waxa weeye euro iyo GBP candle halkan ka soo baxana waa candle maaragtay confirmation ah waxa lagu magacaabaa low test marka insha Allah wuxuuna ka dhashay 1 iyo 2 iyo taashka saddexaad maaragtay asagana uu ka sameysmay marka biidnillaahi kariim asagana maaragtay waa lacag maaragtay ayadana aan isleeyahay asxaabtooda waxa ay ka sameyn karaan lacag marka insha Allah lacagtaasna ka faa'iideysta saaxiibayaal lacagahaas kalena maaragtay ayagana indhaha ku haayo oo ka faa'iideysta saddexdaas lacag caawiyada la wadaagay waxaan rajeynayaa in maaragtay asbuucan aad si fiican uga faa'iideysataan maantii waa lacagaha maaragtay aniga iyo dooran waa GBP waa euro iyo GBP lacag kula wadaag waa New Zealand USD waxa ay soo raaco CAD New Zealand iyo CAD oo ayadana maaragtay aad u qurux badan kun ahaantii waa lacagaha New Zealand oo hore dhan aad u qurux badan asbuucan balse anigu intaana maaragtay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 shantan lacaga maaragtay insha Allah adirada isaaran hadii Ilaahay idmo rawaana maaragtay aan kaga ganacsado marka adinkuna saaxiib yaal indhaha ku haya
euro iyo maaragtay New Zealand iyadana aad u qurux badanta sababta New Zealand u dambeyso baan ka filaynaa lacagaas kalena New Zealand oo horeyso iyadana salaan ka filaynaa GBP/USD iyadana salaan ka filaynaa euro iyo GBP iyadana baan ka filaynaa New Zealand USD iyadana salaan ka sugeynaa marka saaxiibayaal lacagaasna insha Allah waad ka faa'iideysan doontaan haddii Ilaahay idmo faa'iido maaragtay aad iyo aad maaragtay weyn waad ka qaban doontaan haddii aad maaragtay intrigeeda ilaashataan lacagta oo sida ay tahay maaragtay uga faa'iideysataan midda kale saaxiibayaal waan rabo maaragtay inaan idin la wadaagano waxa ay tahay lacagtan hadda aad u jeedaan waxa ay sameeyso wixii lacag lagu aamini lahaa balse ha isdhihin lacagtan waxa ay sameeyso wax walba oo laga rabay waxa saarataa lod aad iyo aad u weyn si aad lacag weyn uga faa'iido marnaba taas ay qalbigaada gelin waxaanu waa game ma fahant waa inaad maaragtay ciyaartan waa inaad fahantaa lacagta iyadoo saan high probability ah ay corruption ku dheeraysan kartaa waxa imaan karo volatility halkan dhalo dheer imaan karo stop loss ka dad 30 iyo 40 ka dhigta taaba kara marka mar walba waxa ku socotaa risk management lacagtan aad u qurux badan tahay lod macquul saaro akoonkaada ka go'o hadii even wax kala dhacaan boqolkiiba had lacagtan boqolkiiba 90 iyo 5 way isdiyaarisa laakiin shanta soo hartay u reeb wax walba oo imaan kara shantaas u reeb aad u maasantiin saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad maaragtay videogan maaragtay wax maaragtay aad ka faa'iidaan lacagaasna indhaha ku haysan haddii Ilaahay idmo intaan ku kulmayno videogan video waxa saaxiibayaal waxaan kaga tagayaa cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad